والله العظيم مالكي صدحات اسكو لا way garan waayeen ilaahay niya qana loogu dhaartaa boqol mar baanan ka dhaartay inaanan waxyaalahaas yani ay igu dadka igu toonsanay inaanan sameyn laakiin wax dad bil aadan ii geystayeen qof ma jirto farxadiisa luminaya oo quruxdiisa luminaya oo waqtigiisa luminaya ma jiro sax gartama mana rabo imika inaan dadkaas qanciyo dhaho maxma cuni jirin iyo waxaas laakiin waxaan rabaa inaan idin la wadaago inay jiraan dad cadow in la iska ilaaliyana ay mudan tahay. السلام عليكم ورحمة الله والسلام يا دمان ولا لها حل كستيدين تهاي ولا لها سوماليات وحد الله هاي حل كستيدين تهاي هايدين وعناضو ما أنتو حاربة إن أن إذن شاقو تبكي أن لكل ما يدور كي سنة أنا صور دافعي رنهانتي مركا أفكار بشيء ويفضل ضحي لكن سوقف قلبي بلا آذن كتيرو أيا درين كراني حالة دان مري تذكرتي لك أقل بدين هنا waxay rabaan bay ku hadlayeen wax aada hubin weligaa iyo alaha ha ku hadlin oo qof bilaadan xanuun u geysan kara horta taas waano aan u galo markaa ujeedada aan maanta meeshaan usoo fadhiistay waxaa weeyaan ujeedada aan meesha usoo fadhiistay inaan la wadaago xanuunkii aniga ee soo maray dhowrkii sane lasoo dhaafay run ahaantii markaa xanuunkaaga aad xanuunsato oo dhakhtar tagto ku dhaho waxaas ku haya waad nafisaysaa waayo xal baa micnihiisu aad xalna u raadinay waad nafisaysaa laakiin ka hor haddaad dhakhtar kasta tagtid oo lagu yiraahdo xanuunkan maba garanayno wuxuu yahay ma naqaano ka waran lagu dhaho oo waxaan ku dhahay lacag kaa baxayso oo waqti kaa baxayo oo xanuun ku hayo oo rafaadsan tahay oo lagu leeyahay wax ku hayo ma garanayno xanuunkan marka soo igu yimid aniga shakina san ku dareemay soo igu yimid ilaa imka ma garan karo laakiin san ku dareemay aniga sheegaya waxaan ka imanay socdaal aan ka imanay socdaalkii markaan saa uga imanay habeennimadii aniga hurdo way soo dhici wayday horta habeenkii oo dhan hurdo way soo dhici wayday subaxii markay ahaydna salaad subax baan u kacay inaan tukado micnihii waan soo jeeday laakiin waan baxay yani si aan soo weysiisto inaan tukada isku dayay labada lugood ayaa waxaa mooday in laygala dhacayo wax culus in laygala dhacayo kaleeto lugihii musqusha tagay inaan soo weysi qaataa rabay waa anoo lay wado ayaa layga soo qaaday waxaa moodaysa inuu qof caadi ii dilayo labada lugood waa la xirxira igu istaaga saliidi mariya xabsuuda mariya halkan ka dhaca ummadda way nasan waayeen maalinkii labaadna sidii oo kaleeto macnaha xanuunkii mid idaayo maba ahayn marba marka kasii dambayso uu kasoo daray garaac oo kaliyaata lugaha garaactaan hurdo la-aan gabigiga dhanba si kale waxaan dareemay barar lugaha waxaan u tegay dhakhtar yar oo agteena waxaan mooday xanuunku inuu iska fudud yahay dhakhtarkii wuxuu dhahay waxaan malaynayaa barar maadaama uu jiro lugaha iyo indhaha hoostooda inuu ku hayo dhiig la-aan oo dhiig la-aantaan malaynaya wuxuu siiyey maxaa la yiraahdaa wixii muxuu ahaa wuxuu igu dhahay isticmaal waxyaalaha dhiig la-aanta loo isticmaalo leyn iyo kili iyo waxaas isticmaal maalinkii labaadan dhakhtarku ku laabanay way garan waay maalinkii labaadan u tegay way garan waayaba ma istaahil baa wallahi waan ka xumoo dhahay ma ilaahay inaan xaaladaada inaan wax ka qaban karo walaale ila maaha dhakhtar raaso waxaan maray guud ahaanba Itoobiya dhakhtar kasta oo la tuunsan yahay ama mid aan isleeyahay waxbuu ka qaban karaa xaaladaada waan maray sababtoo ah waxa la nin ka boqol tali markaad xanuunsan tahayna waxaad yani waxa muhiim ku ah inaad dawoodid bas horta waxaan sheegay dadka wuxuushta ee jecel dadka inay nolosha macnaheedu ay u qaraareeyaan ama ay dilaanba adduunyadu yar tahay waa maalmo way waxa la noolaanayo cimriga islaamka oo dhan waxa lagu qiyaasaa 62 sano 60 sano hadiiba ilaahay cimriga ku dheereeyo wax aad inta kaliya joogsid oo ka tagisid waa aad qof bil aadan intaad galaafatid oo qofkii haduu waayo de sixirku haduu doon qofku dhiman karaa dhiig islaam baad gashay xataa haduu qofku noolaado waa dhiig islaam ma fahanteen dad badan baa jiro oo ugu dhaxaysta ilaa arrimahaas ha aaminin waa shirki ma fiicno mana aaminin ha aaminin yani ha u malayn inaa waxa lagu sameeyay waanu malaynaya